السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعبد الساحة محمد يقوله أبو الندى شنطة الصومالية. halkan waxaan idinku soo gudbinayaa jiifta la magac baxday Gooni Baard taasoo la halmaasha grantii uu soo furay Cabdillaahi Ali Ibrahim Geelle ee gudgude. Gooni Baard waxay leedahay sidan gacan qaad la hubay iyo fariin gaaban oo sax galay iyo warqado godolkiyo ujeedadan gadahan tilmaantana cid ay gaar noqotay fardalaaye geeyo goobtiye ilaa maxan gobka marin Soomaaliya ilaa labada gaatama gaaroodi mariyo godiga saraariya golihii tilmaanaa gotimada habuuriya garan nuglo maansada gudigii aftaankiyo gargaydii ku noolay xilka gowlalaaliyo garcasiyo duqeydii indha gubaha waabari goobiyahanka joogiyo honkeebel gaarsi galbeed hawtaloodo gaarkii suldaankiyo madarweyne gabayada guntimaha u kala fura ilaa garbiyo weyntii galiliga ku caanbaxay guntiga soo adkeeyaan godolaqa u faalee saylaha uga gudubto goobiyahanka joogiyo garkayo golka xaadiye ina guuxa maansadu galalkii ballida iyo goriyo xundisheediyo godka laanta abuuray gudgudaha inoo daay laabsaalax ugu gee gabyaagii aboonkii xidhaalaha la gaatiye gaafafkooda ciga la godolaqa u soo curi taariikhga iyo xawaara nin kastoo ugu weyn baa kaa garaysan doona geeraarka maqashii gudgudahan xawaaraha goolkii irmaantiya saddexdii garqaadiyo godka seerma weydada tireleyl gobolay guushii ku saanyaday gaarsii warqaadow kalamaan garta iyo goobjoog hawariya casha galo xubeeriyo dooxadii gabaaraad gudbanaha may iyo gudgudaha ka soo kacay bariis gooni ugu sheeg sidii Gooni Baardkii hadba garab hadhigato goobiyahanka leelkiyo galiso ordusheediyo garmaqaatayaashii godol laba fadhii jeey warkayga guddoonsii adoo gacanta lulayo halkii galabta maraysiyo geeraarka culus iyo galka seefta kala baxay gurihii ku sii dhaaf salaaniyo guddoon wacan geeraarka maansada waxaan uga goleeyahay abwaankii galbeed iyo gabyaa cali afmaax iyo geesigii abwaan budul gaxnuug afmaal iyo cabdi waaxid gabaadidii warsama garaamaha irmaantii la gaba wareeyay oo galdhidiyay inay soo gardaadsaan haddaan gacanta fidiyo galbeed aanu kicitimo gandhidhiyay ilaa goob gurigii dhanaan iyo dullihii gar loo gubay geeraarshihii iyo gabyaagii u caanbaxay leemkii gamuunkii gamaskii arsaayida malahayga gacallow goday ula talooyo goolka dhaafsidaan qabo gundhigiyo ujeedada gunta aana baaray gudgudihii tog waaheen gabiyada istaagee gool aftankiisii gelin socod ujeedada nin waliba garaadkiiyo garashada aftahanimo gabayada ku soo curi gabagabada aragtii golka taanka dayay dilaabay galowgii halkan aarka geeyay baa gool cas lagu tilmaamay balayana midaageey markale iyo garaantii goodiga tugdheer iyo godka bari u soo raray gadi maxamed sare iyo raagiye gahayd iyo gariiqaan laboodkii gaari maayay anugu garta iyo tusaaluhu fariin gaaban weeyay ninkii galabta tagay oo gaariga la sii raac gudhal iyo haleelada ninkii gaar u maaliyo indha goradka doogsay taariikhda guunka ilaa gaag marhabiye gaatama wixii dhacay ka garaysan maayo gugiisaan u sheegine godka maran ku sii dhaaf waxaan uga goleeyahay saddexda god qaaday gal xubeere koonkaday galowl madaxdiisii geeljira ka dirtiyo magawaan cidaaba halla waa midaan goday midda golaha taaliya saddexaad godkoodiyo geeraarka ku ogeyd labadii geeyaana guurdoonka caashiqa gaaraa bidhaanki iyo bil saddexan ku sii guday kama fogo gadoodiyay abwaankii gabaatiga golaha xaalka soo dhigay warka aanu guud maro nin weynu carabow yaabis ma geeyo ma garaysta laaxina marti goorxun ku timi gaareedi duban iyo mircood goosan maysiyo goray caaliheed iyo gudur iyo cadiinta ruuxii gooman deeqay gobonimo u soo qaad saadaal gundheeriyo galbeed iyo ilaa bari isu maray gudgudihii godka arartu weeye go'ad waxaan u taago gaas dhigolo soo cugay amaan guuro bahaliyo mirgudaalo ku agmaray godontii halbeegii gaaraan u riixiyo waagii guduud iyo sabaaq gaara iyo dhicil casaan mooda galabeed isu guran fadcawlkii goobiyahanku soo tabay gudgudaha inoo daayay gal xareeda oo waran galaxyada bannaan iyo gotimada ku saameeyay waxaan kala go'aynayo gambadii qamaandayay gunteeraygu weeye guliya insha Allah gobaaday aroor wacan waa Cabdi Saaxi Maxamed iyo goliyaha abwanada afka dhaqan shanta Soomaaliyeed iyo Gooni Baard